مدن القدومية xildhibaanada sharafta leh golaha shacabka haweenada golaha shacabka ciidamada amniga iyo baahda saxaafadda dhammaantiin waan idin salaamay mudan iyo marweyn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo jeedinteeda akhrinta koowaad ee sharciyeedka ee hay'adda dadka naafada ah waxay toos diiradda u saari doontaa ugu horeyn baahida loo qabo sharcigan iyo saameynta uu hindisa sharciyeedkan ku yeelan doono miisaaniyadda qaranka sida waafaqsan qodobka 43aad ee xeer hoosaadka golaha shacabka annagoo fulinayna faritaanka dastuurka ku-meel gaarka ah qodobkiisa 27aad oo la faraya waa in la hubiyaa inaan naafada la takoorin isla markaana ay helaan kaalmo gaar ah si ay u gaaraan xuquuqdooda dhaqan iyo dhaqaale annagoo tixgelinayna diyaarinta iyo xaqiijinta siyaasadda qaran iyo istaraatiijiyadda kor loogu qaadayo xuquuqda iyo sharafta dadka naafada ah iyo sidii ay u heli lahaayeen adeegyo la mid ah kuwa muwaadiniinta kale si waafaqsan qodobka 11aad ee dastuurka ku-meel gaarka ah iyadoo la tixgelinayo baahiyadooda gaarka ah annagoo fulinayna barnaamijka xukuumadda iyo waajibaadkeeda shaqo ee la xiriira ilaalinta xuquuqda iyo badbaadinta shacabka waxaa wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka dardargelisay qabyo qoraalkan sharci qabyo qoraalka sharci wuxuu awood siinayaa in dadka naafada ah ay helaan hay-ad matasha xuquuqdooda u doonta isla markaana u abuurta fursado ay ku gaaraan isku filnaan iyo madax bannaani dhaqaale wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka iyada oo garwaaqsan tirada dadka la nool naafanimada heerarkeeda kala duwan iyo caqabadaha ku hareeraysan tixgelinaysa axdiga qaramada midoobay iyo dhammaan heshiisyada caalamiga ah ee quseeya xuquuqda aadanaha gaar ahaan xeerka qaramada midoobay xuquuqda dadka naafada ah ee loo yaqaan CRPD iyo heshiisyada caalamiga ah ee dhaqangalka ah ee laga gaaray in qof walba uu leeyahay xuquuqda iyo xorriyadaha ku xusan heshiisyadaas iyada oo aan la kala soocayn aqoonsanaysa in dadka naafada ah ay u baahan yihiin inay fursad u helaan isticmaalka adeegyada bulshada ee jira iyo baahida in loo abuuro fursado qaas ah si ay u helaan adeegyada bulshada sida waxbarashada caafimaadka shaqada iyo dhaqaalaha iyo wixii la mid ah garwaaqsan in ansixinta qabyo qoraalkan uu si wax ku ool ah u tayeynayo dadka naafada ah si ay fursad kasta u helaan si dheelitiran garwaaqsan in qabyo qoraalkan daryeelayo dhammaan dadka naafanimada ku dhashay iyo dadka tirada badan ee ku naafooway xaaladihii uu dalka soo maray dartood wuxuuna dhowrayaa sarana u qaadayaa xuquuqda dastuuriga ah ee nafaraya inay naafadu ay muwaadiniinta kale ula sinaanaadaan adeegyada iyo xuquuqda lagana ilaaliyo xuquuq iyo takoorista sida uu qabo dastuurkeena garwaaqsan in qabyo qoraalkan uu ilaalinayo sharafta iyo karaamada dadka naafada ah uuna xoojinayo inay noqdaan muwaadiniin leh xuquuq la siman inta kale hay-adduna waxay u taagnaan doontaa doonista dhammaan xuquuqda dadka naafada ah iyo in loo sameeyo hay-ad magacooda iyo dantooda u adeegta isla markaana u raadisa fursado waxbarasho shaqo iyo in ay helaan tixgelin gaar ah oo siinaysa fursad kasta ee bulshada kale u furan haddaba xildhibaanada sharafta leh sidaan hore ugu soo xusnay baahida loo qabo in sharciga la dejiyo isla markaana tixgelinayno faritaanada dastuurka kor ku qeexan iyo baahida gaarka ah ee qabaan muwaadiniinteena naafada ah waxaan si xushmad leh
iyo sharaf ku dheehan tahay aan hortiina ku codsanayaa inna loo ansixiyo sharcigan annagoo diyaar u ah inaan si dhow ugala shaqeyno guddiga golaha shacabka ugu xilsaaran arrimahan. haddaba markaan u soo jeesto qodobkayga labaad ee ah saameynta miisaaniyadeed ee uu sharcigan ku yeelanayo miisaaniyadda qaranka, guddoomiye iyo xildhibaanada sharafta leh, waxaan qoraal rasmi ah ku soo lifaaqnay qabyo qoraalkan sharcigan oo qeexaysa in miisaaniyadda hay-adda ay qayb ka noqon doonto miisaaniyadda qaranka ee 2019 ee la horkeeni doono golahan sharafta leh haddii ilaahay idmo. gunaanadka hadalkayga waa in ugu horeyn aan idinkaga mahadceliyo dhagaysigiina qiimaha leh iyo in aan soo dhaweynayo diyaarna u ahay inaan ka jawaabo wixii su'aal ay aad qabtaan. waad mahadsantihiin.